الرحيم مقعيو وحوي اللي بان فيصل أحمد سامع halkan waxaan macnaha war-saxaafadeed aan kaga hadlayo saddex arrin saddexda arrin oo kala ah waanu habeenadanba macnaha telefishinada iyo ilaacadaha ka arkaynay dad ka hadlaya macnaha doonaya inaan halkan aan kala hadlo saddexda arrin waxa weeye arrin ka hadlayay Siciid Cilmi Rooble oo xirsi ka hadlayay iyo arrin oo gudoomiyaha baarlamaanka ku hadlayay marka hore waxa laga hadlayay saldhigga xukuumaddu bixinayso waxaa ka hadlayay xildhibaano qaran xildhibaanada qaranka waxaan leeyahay waxaad mooddaa inay degdegayaan oo degdeg ku jiro wuu idin hor imanayaa wixii xukuumaddu ay gelayso iyo hawsha ay wadaa way idin hor imanaysaa inaad sugtaan ayaa muhiim ahayd waxaan filayaa qarankaa mas-uulka ahaydeen in aad dhaafsan tihiin mas-uuliyaddii qarankaa waa hayseen haddii aad tihiin xildhibaanada macnaha kuwa ka hadlaya ee noocan u hadlaya waxaynu ogeyn xilligii dekedda xildhibaano badan baa qaylinayay xukuumaddaa lagu qaylinayay wax koror imaatinkan iyo waxqabadka iyo maalgashigaa laga qaylinayay oo ay diidanayeen dadku hadday u haysteen inay u hadlayeen qarannimada waxaa noo caddaatay inaydan qarannimo u hadlayn ee aa u hadlayseen sixir aa ka hadlayseen bal horta waxaan idin leeyahay xildhibaanow waa kuwa hadlaya iskuma jiraan xildhibaanadu waxaan ka hadlaya ee maalin walba buuqa macnaha Siciid Cilmi Rooble baa ka mid ah sidii nin qaran u hadlayana waa uu iska dhigayaa qaranna u hadli maayo qofnimadiisu u hadlaya taa waxaa dheer dee mala Siciid Cilmi Rooble wuxuu yaqaan berbera inuu isagu leeyahay malihid berbera qarankaa leh intaasaan Siciid Cilmi Rooble intaasaan leh iyo xildhibaanada macnaha noociisa aba ee hadalkoodu kaa yahay waxa weeye suga marka ay idin soo gaadho xukuumad baynu sharci baynu leen xildhibaanaad annagu xildhibaano degolo degaan baanu wixii aanu sharci u leenahay waanu naqaan xildhibaanadiinii qarankaa garan waayena wixii ay xaq u leedihiin iyo shuruucdiinu wixii ay tahay waa yaqaan dee ragga badankiisu laakiin rag Siciid Cilmi Rooble ka mid yahay waxaan filayaa macnaha xilka uu hayaba inaanu macnaha fahansanayn isaga laftigiisa u baahan yaa examination macnaha waa xildhibaan qaran colaad buu ku baaqaya reer ahaan buu ku hadlaya waxaan leeyahay halkaa macnaha inaad iskaga hadhsato ka hawl yaraysataa kaaga habboon nin weynna waa tahay iminka hayay wad wanaag ka taliso waxaan kaloo halkan aan la hadlayaa isna xirsi baa xalay ka hadlayay isna arrimahan kolley waxaan filayaa damalaa fikraddiisu ka hadlayay xaalad kasta oo dalka ka midi waxay u taallaa ciddii loo doortay cid walba qof walbana meel walbana cid baa loo doortay madaxweynaha dalku leey isagaa loo daba fadhiyaa wax kasta oo jira naar hadduu ku shubayo isagaa dadku u doorteen oo ay u codeeyeen waxaan leeyahay xirsi waxa aad wax ku ahayd oo magacaagu ku soo baxay oo sumcad aad ku yeeltay laguma aqoon wixii aad wax ku noqotay halkay ahayd waad garanaysaa wixii aad ka urursatay intaay maxaan ku leeyahay iska dhammayn intaad ka urursatay hadal hayntaadu inta aad haysatay wixii aad urursatay ayay tahay oo ay ku egta
حفلة وات شيدي وقتي هاجينا وات سوق قادتay wixii aad wax ka dhigayna wixii ay haayeen ya waa dadka niman maal gudinayo iga walaalaabay ya alla yarsi warga gaabso joogayaan gaar laga qabanay ya likulli shay yarji'u al-asli wa hirsan leh ya dalka madaxweynuhu leeyahay waa madaxweyne qaran isaga haysta qaar baan ka maqlayeele waxa haysta baashan in la yahay iyo in xashi arag dalkaana ku waxaanu dooranay oo loo doortay oo ummadu dooratay Ahmed Maxamed Silaayo isagana ka taliya taan halkaasaan deeyada aan leeyahay formal caadi waxaan kaloo halkan macnaha aan kala hadlayaa gudoomiyaha xisbiga wadani gudoomiyaha baarlamaanka golaha baarlamaanka wala biisdiid waxaad maamuli kari weyday 82kii baarlamaanka gudoomiye dalku waxa uu ka dayacan yahayna waxa weeye waa baarlamaanka iyo shuruucdii dalka sharci dejintii baaday gudoomiye sharci dejintaada waxaan filayaa adiga macnaha madaxweynaad ku tahay halka baad adba ku ahayd madaxweyne kale waa doonaysa horta kuwa taad wax ku tahay inaad wax ka qabato oo ka soo baxdo shaqadeed ya baa laga filay 82 baad ka soo bixi weyday wixii loo diray ma dalko dhan iyo ummadoo dhan baad macnaha saaysa waxaad ka hadlaysay golaha deegaanka anigu waxaan ahay xildhibaan xisbiga kulmiye ana xisbiga soo saaray kulmiye codkaygu ku soo baxay xisbiga kulmiye kama talinayo meesha aan gelayo kumana soconayo shakhsiyadayda dad baa ay doortay mas'uul baan u ahay halka aniga ii wanaagsanna shakhsiyad ahaan nin maraya ma ihi halka dadka ay doortay u wanaagsan ee dantoodu ku jirto aanu arkayn dantoodu ku jirto ayaan maraya macnaha waa kulmiyaan ahay fiina wii horena waanu ahay imikana waan haddii aan xisbigan aan ahay u arko iyadoo hadduu aniga ii wanaagsan yahay kulmiye oo dadkii doortay uu u xumaado waan ka tashanaynaa inaan macnaha ka kaxeeyona iyaga igu kalifay waxaan leeyahay waxaad ka hadlaysay xildhibaano u cudo oo galay kulmiye kuwaagii wadani baa galay kulmiye maxaad u cud ka sheegi ma kuu tirsan yihiin xildhibaanadii wadani isweydii inta aad kuwa cid ka hadlayso waxa la midgaantu intay gudo kale aslaysaa keedu qurmaa irana waxaan leeyahay ana asaasaan leeyahay waa gudoomiyihii baarlamaanka dalkana loo daayo shuruucda cid walbana shaqadeeda ha loo daba fadhiisto madaxweyne dalkaada haysta adaana lagu daba fadhiyaa nin kastaaba gal iyo muslim adiga lagu daba fadhiyaa dalkan waxna laga weydiinaya haddii lagu gubanayo taad marisaabuu maraya raalina waanu ka nahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.